cilmi dhaqarshe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxay gaareen degmada Balanballe ee galbeedka gobolka Galgaduud. wafdiga taliyaha waxaa qayb ka ahaa taliyaasha booliiska iyo sidoo kale asluubta. si lamid ah wafdiga ayaa waxaa ku jiray saraakiil iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. wafdigan ayaa waxay safar dhinaca dhulka ah markaasi uga soo ambabaxeen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug oo maalmihii ugu dambeeyay ay howlo shaqo u joogeen. ujeedada safarka saraakiishan ayaana waxa ay yahay in ay diiwaan geliyaan ciidamada ahlu sunna ee ku sugan degmadaasi iyagoona ka mid noqon doona ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. dhawaan ayaa ahayd markii ay madaxda ahlu sunna wal jamaaca ay ciidamadooda ku wareejiyeen dowladda Soomaaliya iyadoona markaasi horay qaar ka mid ah deegaanada maamulka Galmudug loogu diiwaan geliyay ciidamo ay ku wareejiyeen dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan ku xasuusinayaa hadaan ugu cusub